ووطنك وقبا كرايا ووطني. بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ku soo jeedinaynaa programkeena maxaynu qabsanay maxaase qabiyaa maanta waxaan idiin soo diyaariyay qodobo badan oo aan kala hadlayo imaayarada iyo xildhibaanadii loo doortay golaha deegaanka shaqadooda ugu muhiimsan ee aynu uga baahanahay ayaan rabnaa oo bulshadana u sheegaynaa insha Allah bismillaahi kariim iyaguna kulli way ogyihiin annagana wixii aragtidayada baan ugu daraynaa oo ku soo dhaweynaynaa kabacdi marka dambana waxaan doonayaa inaan idiin soo jeediyo arrimo ku saabsan arrimo aynu ku gaarayno isbeddelka degdega ah iyo sidii aynu hore ugu socodsiin lahayn waddankeena intiraafkana calankeena aynu ugu raadin lahayn marka walaalayaal maayarka cabdikariin ilaahay ha ka tisaay mariyo iyo xildhibaanadiisa qiimaha badan leh ee ku hareeraysan iyo shaqaalihiisa aad iyo aad ka qiimaha badan leh situationka ay u bilaabeen dalkeena Somaliland uguna horseedeen siday u nadiifin lahaayeen caasimadda Somaliland in allaala intii kale degmooyinka kalena ay ku daydeen ama iyaga naftirkoodu hadafka uu cabdikariin sitay iyaguna ay inoo muuqato inay siteen oo iyaga naftirkoodu ay sameeyeen arrimo aan hore looga baran goboladaas ku hareeraysan caasimadda sida gobolka Togdheer gobolka Maroodi Jeex oo cabdikariin hogaaminayo gobolka Saaxil Sanaag iyo Awdal iyo gobolladeena lixdeena gobolba marka waxa halka inooga muuqata maasha Allah inay fikrad iyo aragti fog ay wataan nimanada dhalinyarada ahi inagana inooga baahan yahay hadaynu nahay dadyoga la maskaxda ah ama la aragtidii inaynu baahino situationkii bulshaduna uga qayb gelin lahayd iyaguna ay ugu fududaan lahayd hadafka ay leeyihiin si ay u gaadhaan waxaynu ognahay cabdikariin waxaan jecelahay muddo adigu dhowr iyo 10 sano ama 20 sano hadaan ka badnaynba hadafkan maanta uu gaaray inuu ku fakarayay kuna riyoonayay ilaahayna u fuudeeyay oo maanta uu gacanta ilaahay soo galiyay deegaanka gobolka baan leeyahay Maroodi Jeex caasimadda inuu u noqdo maayar sidaas dabeeto fashi uu helay arrimihii maskaxdiisa ka guuxayay ama uu ku riyoonayay waqti badan oo uu joogay waddanka Somaliland okay maxaa markaa aynu arki karnaa ama dareemi karnaa waxa halkaa inooga muuqata dadyowga bulshada bini'aadanka ilaahay sameeyey inaa ay kala aragti fog yihiin kala fakirka ku kala duwan yihiin marka qof kastaaba horta wuxuu qabanayo waa fakirka uu markaa aaminsan yahay taas ayaa u fududayn karta wax kasta oo uu qabanayo marka cabdikariin waxaa u fududeeyay arrimahan fakirkii uu haystay ayaa u fududaysay dhalinyaro badanina way caawisay oo ay number 1 ka yihiin inta la ah xildhibaanada ee kula hareeraysan caasimadda ee loo doortay xildhibaanada ayaa aad u caawiyay iyo dhalinyaradii soo doortay ee codka siiyay 2000 waxa la 26,000 iyo 290 cod ama something ayaan aaminsanahay dhalinyaradii oo diyaar u ah inay marba u garab istaagaan ayaa muujiyay sidii ay wax u qaban lahaayeen waynaga arkaynaa yacni khamiistii shalayto arrimaha dhacay waynaga arkaynaa inama reer dhan oo aroosa ama nin dhan oo aroostay yacni sidii uga qayb galay xashiishka sida loo gurayo ama loo nadiifinayo dalka caasimadda dalka caasimadeesa magaalada Hargeysa oo idinka arkayay marka halka waxay nooga muuqataa in heegan loo yahay qof kasta oo official wata hadafkiisuna yahay hadaf wax qaban in cid kastaaba ay diyaar u tahay oo garab siinayso taasi waa caddaan waa wax aynu ogaanay maanta marka fikirka saliimka ee dihan waa inaynu qaadano rag iyo dumarba cidii la timaado waa in garab la siiyo waa in loo hiiliyo sida cabdikariin oo kale ama maayirada kale ee imakaba sida gobolka Togdheer oo kale ay aaminsanay gobollo badan oo kale oo ay muujiyay in iyaga naftkooda si wacan u shaqeeyaan inaynu dadkaas caawino ayaan inooga baahan garab siino siiba dawladdu ay garab siiso siiba waxaan leeyahay baarlamaankan cusub inuu si emergency oo akuutana uga soo saaro sidii uu la horumarin lahaa ama uu muujin lahaa inay qabtaan waxyaabo badan oo u qorshaysan deegaamada iyo caasimad ku-xigeenka yacni si isugu sii xigaan plan A iyo plan B iyo plan C in loo kala qaybiyo meesha ay uga baahan tahay horumarka in wax ku la muujiyo oo ay caawiyaan dawladdu caawiso ayaa muhiim
markaa waxaan leeyahay maayirada annagu haddaan qurbo joog runtii borogaraamkana maxaynu qabsanay maxaase qabiya waxaan rabnaa inaan idinla jaan qaadno oon waxalaa wixii awoodeeda ah kaalin qayb libaax idinkala qaadano usoo bandhigno bulshada hadafkii aanu idin caawin lahayn sida in la helo fikrad number 1 number 2 aragti fog oo tiina aawadaan kobcinaysa number 3 sidii loo heli lahaa dakhli amaba maal lagu horumariyo bulshadeena annaga oo garab idinku siinayna qof kastaba uu la yimaado situationka aan dugala qaybgeli lahayn waxaan ognahay deegaan kasta waxay leeyihiin guddi xildhibaano loo soo doortay dad shaqadan ku dhaarto kitaab gacanta u maray dadkaa garab ayaanu siin doonaa insha allah billahi kariim wadaadada ayaanu leenahay culimaa diinta inay waxyaabo badan ay iyaguna u kacaan maasha allah wax badan ay qabtaan way jiraan si looga hortagi lahaa fasahaadka dalka maxaa aysan u dareensanan waxaa jira dadyo badan oo ka baac mushtareeya qaybaha muxaadaraadka oo kale sidii aynu uga hortagi lahayn wadaadadu inay gacan igu siiyaan iyagoo bulshada wacyi gelinaya ayaanu idiin soo jeedinaynaa ciidamada dalka maamulka u haya ee loogu talagalay xuduudaha ka ilaaliya waxa inoo soo gelaya qodobka labaad ee aan rabo maanta inaan ka faa'iidaysto waxa weeye wax kasta oo la qabanayo qof ayaa hal abuurka la yimaada hal abuurkaas ayaa lala garab galaa dowladda iyo culimada iyo shacabka waxaanu soo jeedinaynaa annagoo ah dad iyaguna annagoo ah oo anigu shakhsi aan ahay qof wada fikrad dihan oo dalka iyo dadka wax u taraysa inaad garab ku siisaan in allaala intii shaqadu naga dhaxayn doonto insha allah mustaqbalka ee aanu la shaqayn doono ee ay number 1 ka tahay insha allah dowladda cusub ay noo dhalan doonta ee aan leenahay isbedel doonka ee ay ka soo baxeen maayiradan imaka aktifiinta ah ee shaqaynaya waxa weeye dowladdaas sidii aynu gacanta ugu dhigi lahayn faroogeeda hala qabto wadaadadu waa inay xusbiyada la shaqeeyaan iyaga oo waaninaya oo wacyi gelinaya oo tilmaamaya oo tusaya waxa maanta looga baahan yahay waxqabadka waayo dowladda fiicani waxa laga yaabaa 100% waxay keeni kartaa isbedel aad iyo aad u ballaaran oo bulshada kaga hortagi karta muxaadaraadka inay ka celiso kaga hortagi karta horumarka qurxinta dalka inay muujiso kaga hortagi karta carruur yaryar ee dhalanaya sidii loo heli lahaa mustaqbal fiican loogu heli lahaa iyo waxbarasho qiimo badan oo number 1 aynu kaga bilaabayno tan diinteena islaamka waayo qofka hadduu diinta islaamka uu fahansan yahay waxyaabo badan ayuu ka hortagi karaa oo dhibaato ku iman karta sida muxaadaraadka oo kale qofka haddaan diinba garanaynin muxaadaraadka waxaa inoogu fudud jaadka iyo sigaarka waa labada ugu daranay dalkeena iyo dadkeenaba daabiyeysay xashiishka ugu badanna laga helayo cudurka ugu badanna laga helayo markaa culimada waxaan leenahay haynoo soo baxaan oo haynoo soo baxo madaxweyne ka ballan qaadaya inuu ka hortagayo muxaadaraadka oo qaadka ka dhigayo kontrabaan la qaban doono sigaarka isaga naftigiisa la taagi doono taas ayaan ugu dhiirigelinayaa biliis wadaadada waxaan rajaynaynaa inay la shaqeeyaan isbedel doonka inay la shaqeeyaan baanu ka baryaynaa maadaama culimadeena yihiin dalka iyo dadka mas-uul la weydiin doono maanta yowmal qiyaame biliis la shaqeeya dhalinyarada qiimaha badan leh imika waa la shaqaysaan maayiradeena xildhibaanadeenna iyo madaxdeena iman doonta insha allah mustaqbalka la shaqeeya baan idin leenahay isbedel doonka la shaqeeya xusbiga wadani wuxuu hagoogsan yahay oo aynu ognahay maanta inuu yahay hogaamiye saxa oo dhaba cabdiraxmaan oo nin degan oo mas-uula oo qaadi kara xilkan maanta uu u diyaarka yahay inuu u qaado dalka iyo dadkaba markaa la shaqeeya baan idin leenahay cabdiraxmaan oo kala shaqeeya arrimo kala duwan oo maanta uu u baahan yahay in gacan lagu siiyo number 1 iyada oo loolanka dambe uu iman doono in lagu looli karo oo lagu afgambiyi karo ama lagaga hor iman karo inuu dadka la iibsado sidii ayaantii dhowdoo kale waxaa soo baxay 52 xubnood oo loogu codeeyey inay isbedel doonka ka soo baxeen waddan iyo wixii waxa aynu arkaynay xildhibaan cumar inuu ku waayay kursigiisii 40 12 xildhibaan baa halkaa kaga baxay oo inagaga tegay 12 xildhibaanna hadaf kale umay ku tageen daacadnimo kumay tegin islaamnimo ay ilaahay isleeyihiin yacni xaggiisa ka baqa kumay tegin
waxa lagu saaray waxyaabo kale oo iyaga jugleyn marka anigu waxaan rabaa inaan arrintaa ka hortagno oo dadka loo wacyigeliyo oo aynu wacyigelino ummadda islaamka oo aynu nidhaahno war ilaahay ha laga cabsado isbedel doonka ha loo hiiliyo waxyaabo badan oo aynu u baahannahay oo maanta aynu culimmadu uga baahnay baa jirta caruuraheenni yaryaraa iyaga oo 10 jira ama 15 jira ayay mukhaadaraadka toos u galaan maxaa koosgareeyey waxaa koosgareeyey dowladdii kantarool lahayd ma joogto dadkii loogu talagalay inay waxay mas-uul ka noqdaan ma joogto hadda anigu waddan baan joogaa waddankaas lagama yaabo sigaarka markuu iibsanayo qofka waxaa la yahdaa leega kemikal ilmuhu inuu yaryahay uu 10 jir leegyahay leega tamaquunka lagu garanayo baa la eegayaa haddii uu ilmahaasi leega tamaquun lagama iibinayo sigaarkii maxaa waana dhul aynu odhan karno waa dhul aan diin lahayn okay maxaa inoo diiday inagoo diin le inaynu diinteena ku maamulno hadda waxaan anigu aaminsanahay wadaadada waa loo soo jeedaa waa la dhegaysanayaa maskaxdiina iyo caqligiina iyo kitaabka ilaahay baanu rabnaa oo la rabaa please caawiya dadka culamada caawiya cabdiraxmaan ciro kula dardaarma inuu control gelinayo ama kontrabaan ka dhigayo qaadka kabacdi arrintaas aynu xoog uga shaqayno insha allah anana waan kala shaqaynaynaa marka hadda kilibkaygan aan duubayo ama programkan aan soo jeedinayaa number 1 waxaan doonayaa inaan u sheego ummadda inaanan fadhiisan doonin inta xusulkay xabool ka sokeeyo waxa laala wixii ilaahay iigu talagalay ee caqliya ee maskaxa ee aan ummadayda u hayo ee adduuna ee aan ummadayda u hayo waan usoo bandhigayaa mar walbana isbedel doonka ayaan anigu garab siinayaa waxaan garab siinayaa cid allaale ciddii u dhow ilaahay subxaana wa tacaala cid allaale ciddii danaynaysa danta iyo dalka bulshada somalilan ayaan mar walba garab taaganahay please caawiya oo garab istaaga xildhibaanadeenna nayloo doortay ee ay isbedel doonka u doorteen ee cabdikariim iyo dhammaan intii uu hogaaminayo madaba caasimadda isagu hogaaminayo in alaalinta kana isaga hoos imanaysaa marka waxaan anigu idin leeyahay cabdikariin caawiya inamada kale caawiya 5 gobolee kale ka soo baxay waxa weeye aynu isgarab istaagno hore aynu u socono taasi waa qodob waxyaabo badan baan doonayna inaan ka hadalno waayo borogramkan waa borogram taxana ama maalin kastana soo geli doona marka waxa weeye hadal kama badinayo intaasaan idinkaga baxaya talwadkan maanta iyo arrimahan maanta aan wadnaa waxa weeye maayarow ogow xilka kaa saaran dalka dowladdii hoosaata xashiishkan iyo arrimahan markaa guushaa gaadhaan ee dalka nadiifisaan waa in la isqaybiyo qaybi cabdikariin iyo waxaan la hadlayaa dhammaan xubnaha kale ee gobollada maayarada gobollada ayaan la wada hadlaya kulli cabdikariin waxaan usoo qabsanayaa oo fashil wuxuu hayay oo moolkan maanta uu gaadhay ama borogramkan uu gaadhay ee gacanta uu ku hayaa muddo ayuu ku riyoonayay kabacdi wuu haleela marka inaga waxaan inooga baahan inaynu isaga tallaabadu qaadaba ku dayano haddaynu ka aragti fognaanay oo lagaba aragti fog yahay yacni